عليكم ورحمة الله وبركاته نيك اللي يراهدو جامع والله لواق سلامة جزاك الله خيرا جزاء والله اللي أنا داود هذا رن أهانتي فائدة بدن بانكي هلاي من عن عروس قالوا هذا كوران سينا فائدة دي كبدن بوكي هلاي نيه هو أنا ومركي جوهر قربها أساس كتير وشري من إسكندر يرى إسكندر خالا بناها نيه هو الحمد لله dawadan maalintaan isticmaalay waa iska waday inkastoona weli regular u isticmaalin sida aan regular bishii markaan dhammaystay baan aroos galay ilaah baan iga sarreysay inaan ilaahay hortiis baan u hadlayaa inaana daawadadan xayeysiinin jaamacow wax kalena xayeysiinayn maalintaan daawadaada isticmaalay waxaad u moodaa 20 jirkayga xitaa waxaana samayn jira maantana 50 sanaan jira 20 jirkayga waxaana qaban jirin baan qabtay oo xagga dumarka xagga ragganimada xagga fircoonida wax kasta iyo waxaan dumarka Soomaalida fircooniga beebiga faction iyo balaaya laga qaadaa taasaa waxay keenaysaa dadka inay hamaydiisa yareyso sideeda kale meexa qurbaha la yiraahdo waa dib badan yahay niyow qurbuhu aad buu ragga u dilaa qabowgaas iyo stresskaas iyo isla hadalkaas iyo waxaas iyo dhan markan iyo alxamdulilah anigu daawadaadii ammaan baan ku hayaa laba nin baan kalaan siiyeyna uu ammaanay oo aroos galayay aad buu u ammaanay hadda wax kaloo aan siiyey hal nin oo kaloo hadda aan kaaga qaadanay isagana wataan kuu sheegay jaamacow isagana wuxuu leeyahay weli natiijadii ma gaarin laakiin waan wadaa markan iyo anigu daawadaada aad tii sokorta waxba ma ka sheegi karo waxba kuma noqon laakiin waxaan sheegayaa tii infectionka aad iyo aad baan ugu liibaanay aniga xaggayga ilaahay caafimaad taam iga siiyey karti awood caafimaad firfircooni wax walbaan ka helay alxamdulilah marka saas baan ku dhageysiinayaa jaamacow wax kaloon ka sheegana male intaas baan ku arka daawadaada kala hari maayo oo insha allah qof kastoon arkana waa waxayeysiinaya waan u sheegayaa xagga saynis kale bini'aadamka ilaahay subxaana watacaala waxaan waa daawo qofna ilaahay daawo ka siiyaa qofna dee waa weli waqtigiisaa dhiman marka insha allah walaale ilaahay ku barakeeyo waa diyaar baan ahay inaan kula shaqeeyo wax kasta oo rabtid khayr badan baan kula jeenayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi